nimanka haddaad rabto inaad wax kaga dayato cilmiga iyo aqoonta kaga dayo markooba baan kuu sheegaya waxa weeyaan culumta maadiga ah inta badan layskuma khilaafo adoonto baro aqoona laakiin baro adigoo dhisan oo baysi leh oo aan lumaynin saa'ilkani wuxuu leeyahay sheekh waxaa tala naga siisaa oo aad la talisaa dhallinyarada ku saamowday dhaqanka reer galbeedka ee timaha sida khaldan u xiirta ama dhinacyada xiira talasii ay waxweeyaan kuwaana qaadanayaan tala waxay ku kooban tahay inaynu ilaahay ka cabsanno subxaana wa tacaala gaaladu maanta dunida joogta ee reer galbeedku hoggaamiyo waxay ku fiican yihiinna waa jiraan oo ay dunida dee ku hoggaamiyaan ilaa cidi hadiyad uma siinin hoggaanka dunida waa waxay shaqaysteen waxay ku liitaanna way jiraan innaga dhibtu waxay naga haysataa wixii ay ku fiicnaayeen kaga dayan maynee wixii ay ku liiteen baynu kaga dayanaynaa waxay ku fiicnaayeen ee dunida ku maamulaan waa aqoon iyo cilmi baadhis iyo sabir iyo xilmi iyo wixii la mid ah taas baa sababtay inay dunida hoggaamiyaan bacd allahi subxaana wa tacaala taas baana diintu inoo sheegtay meeshaynu ka hellaba inaynu qaadanno oo tajaaribtii aadanaha waxay ku liitaan aan waxba sheegaynin oo ah brofesor dhan oo aan nijaasta iska maydhi karin markaad aragto ama waxaan aadamaha u suubanin samaynaya waad ka naxaysaa xaggan kale markuu dhigayana aad arkayso khabiir laga dambeeyo inuu yihi haddaba walaalaha muslimiinta dhammaantood waxaan leeyahay wargaalka waxaad kaga dayataa wuxuu ku dheer yahay cilmiya kaga dayo adiguna waxay ahayd inaad aadanaha u soo bandhigtid waxaad dheertee dhaqan iyo diin iyo akhlaaqaad rabbigaa kala kulantay haddaba gedinina arrinka waa wixii cilmi iyo ku dayasho u baahnaana kaga dayan mayno wixii aan ku dayashada u baahnayna waynu kaga dabagedis saas marka waxaan leeyahay walaal kastoo muslima nimanka haddaad rabto inaad wax kaga dayato cilmiga iyo aqoonta kaga dayo laakiin tibadhan laga xiiray iyaguna kumay horumarin mara la gaagaabsada ama la daldalooliyana kuma horumarin kuwooda horumariyeyna maaha kuwa waxaa ka shaqeeya xataa kuwooda horumariye waxaan ka dambeeya qolada idinku daawataan inta badan waxay u badan yihiin kuwa la yidhi dadka madadaaliyo dhaqanka ka bedela kan heesa iyo kan boodbooda iyo kan kubadda ciyaariyo waa kooxda entertainmentka ka shaqeeya bini'aadamka inay madadaaliyaan oo mashquuliyaan yaan lagu mashquulinine meesha wax jiraan qabo wallahu aclam jazaahu allah khayr aljazaa saa'ilkan labaad wuxuu leeyahay sheekh waxaan hay arday bartay culumta shareecada doonaya inuu barto culumta siyaasadda sidaa daraaddeed ma igula talinaysaa inaan barto culumta maxaase tala iga siinaysaa culumta artiska la yidhaahda dhammaanteed marka la ysku wada daro waa caqli bini'aadam wixii ka soo fulay oo ku salaysan weliba qofku siduu nolosha iyo adduunka iyo jiritaanka u arkayay markooba baan kuu sheegaya waxa weeyaan culumta maadiga ah inta badan layskuma khilaafo culumta maadiga ahi inta badan ma sheegto qofkii soo saaray wuxuu rumaysnaa maalan qaacidada xisaabta ah ma ka tarjumayso ninkii soo saaray wuxuu rumaysnaa ma sheegaysa aljabra dhigataa aljabra walmuqaabala aljabra waa nin muslima soo saaray laakiin inuu muslim soo saaray kama muuqanayso allogaritham baad dhigataa allogaritham waa magacii maxamed alkhawaarzami allogaritham waa si qaldan unbaa loo akhriyey oo alkhawaarzami weeyaan kama tarjumayso garan maysid marka aqoonta maadiga ahi ma kala lahaa sibqo yahuudiya ama buudista ama kristana ama muslima ma kale waayo waa xaqaa'iq laabka la geeyo ama calculation la sameeyo hadday sax noqotona saxa hadday qalatayna qalatay ama aqoonta aaraada bini'aadamka ku salaysan ee aan tajribada gelin waxay kale leedahay madaaris fikriya school of thoughts
وكوا مدك تحيقا كوا بدح تحيقا كوا هلكا كان كوا شيوعيغا كوا كابيتاليستكا كوا عين كان محل لوكل كوا كوي فيسكس ميولي كوا كابيتاليستكا يا كوا شيوعيغا يا كوا يهوديغا ما كلا له لكن marka timaada artka waxa loo yaqaano ayaa mas'ala kasta la soo qaado inta theory kala nooc lagu sheegaya oo school of thoughts la leeyahay professor Hebel wuxuu hogaaminayaa ra'yiga caynkaas kalena wuxuu hogaaminayaa ra'yiga caynka nin walba adiladiisu kaasanaya xujadiisu kaasanaya waa araa la dhigayo taa macnaheedu waxa weeyaan araada aadanaha caadiga aan ahayn talaabka gashaa inteeda ugu badan leh qofku wuxuu rumaysan yahay nolosha wuxuu ka rumaysan sawir ka dhex muuqda weeyaan saadaradeed baa araada kapitaliska rumaysani liberalism مثلا ninka rumaysani ee siyaasadiisa ka dhex muuqata sidoo dhigayo liberalismka communismka ka rumaysanay siyaasadiisa ka dhex muuqata maxay siyaasadda sidoo dhigayo basis-ku noqonayo walidaalك waxa dhiganaysa waxa weeyaan waa tajaaribtii bini'aadamka oo lagu kala gadisay maadaama ay tahay dhaqaale siyaasad taariikh waxa soo dhan soo dar xaq iyo baatil ba way leedahay waxaan ku talinayaa qofka muslimka ee raba inuu dhigto waa tajaaribta aadanaha ha dhigto laakiin ha dhigto isagoo haysta waxa uu xaq iyo baatilka ku kala sooco usuusheedii diineed ee diintaadu ay sheegaysay waa inaad garanaysaa maxaa sax maxaa qaldan usuushaasi markay ku rakibanto waxa kale oo dhan waad baran kartaa waad kala garan kartaa markaa maxaa kiisu sawaabka u dhow yahay siday sawaabka ugu kala dhowday maxaa qaldan maxaa la toosin karaa maxaa laga faa'iideysan karaa maxaa laga faa'iideysan karin tala muslimiintii hore dhaqankii iyo diimihii dadka kale ma ay qaadan laakiin haddana tajaaribtoodii wixii faa'iido ku jirtay way qaateen mid dagaal ha noqoto talan dagaaladii nabigu galay khandaqa kan waxana waa taktiik beershiyana muslimiintii beershiya ka timay soo kordhisay waa la qaatay diiwaangelintan askartiya maamuladan iyo waxa ka nooc ka mid dawladda kale laga soo qaatay waa la qaatay yani wax badan oo la qaatay baa jira wax laga tagayna waa jirta marka waxa doonta baro aqoona laakiin bara adigoo dhisan oo bays leh oo aan lumaynin mushkiladayna qabsatay ugu badan ba waxay tahay inaan koo maran ba inta halkan laga diro malcaamadii diini ugu dambeysay ayaa raashiya loo diray dabeetana xaq iyo baadilkii intuu kala garan waayay isagoo communist soo noqday inaan koo maran oo malcaamadii diini ugu dambeysay Mareykan loo diray ama Ingiriis loo diray dabeetana isagoo liberal buu soo noqday ama afkaarta rumaysan bayskan ku dhisanay hadda bayskaagu dhisan yahay waxbarashadu dhib ma aha waxbaro wallahu a'lam